xageen ka bilaabaa bismillaahir rahmaanir rahiim muuqaalkan waxaan kugu wadaagayaa khaladaadka ay sameeyaan ardayda waliba gaar ahaan kuwa jaamacadaha shan qalad oo ay ardayda sameeyaan ayaan kugu wadaagi doonaa muuqaalkan kusoo dhaw muuqaalka hadii channelku cusub tahay subscribe saaro muuqaalkana like saar sida badan u gaar runtii horta bini aadana leeyahay oo khalad lagama waabsanayo oo mar walba khalad uu imaan karaa oo uu dhacaa oo mar walbana ardayda ama dhalinyarada khalad way sameeyaan hore loo yiri 20 jir intuu geed ka boodo tala ka booda marka qaladka ugu koobaad horta dhalinyarada ay sameeyso marka ugu koobaad waxa la yiraahdaa career selectionka waa wixii aad baranaysa inaad dooqatid qofka inuu wax barto laba meel ayay ka yimaada ama waxaad jeceshahay inaad baratid ama wax lagu qasbay ama wax lagu yiri waxaas bara inaad baratid waa un labadaas kaliya mid ugu muhiimsan waxay tahay markii aad wax baranaysid ama jaamacad aad bilaabaysid oo career aad dooranaysid ha noqoto wax adiga aad jeceshahay wax adiga aad interest garaysid ha noqoto sidoo kale wax adiga aad ku fiican tahay oo qof walba hibi Ilaahay siiyay wax uu ku fiican yahay ayaa jira maskaxdiisa oo uu qaban karo qofka marka waxa adiga aad ku fiican tahay adaa is yaqaano inta fadhiisatid fikir waqti ba ku qaadato waxa aad jeceshahay go'aanso inaad baratid yaanan lagu saameynin oo dadka familkaaga ah ama dadka kale asxaabtaada yeysan saameyn ku yeelan waxa aad baranaysid qofka wuxuu jecel yahay hadii aad baratid hadhowda qofka wax qabanaya waa adiga oo wixii ku shaqeynaya marka dhibaatooyin badan ayaa kala kulmaysa oo waxa jeceshahayba ma aha hadhowdina kuma raaxaysan kartid wixii aad markaas ayada ku shaqeynaysid waa ogahay way adag tahay qofka mararka qaar inuu ogaado waxa uu ku fiican yahay waa qodob muhiim ah waxaad ku fiican tahay inaad ogaatid mararka qaar waqti ay qaadanaysaa wayna adag tahay marka qalbigaaga raac wuxuu ku sheegayo wuxuu qof kale ku sheegayo ha raacin mararka qaar waxa dhacdo dhalinyarada markii ay career ay doortaan ama career aysan rabin uu doorto qofkii laba mid ayaa ku dhacayso labada mid oo ah hadhowdi inuu ka shalaayo markii uu waqti badan uu ka lumo oo intuu soo qaato 4 sano uu ka shalaayo uu dhaho wixii aan soo bartay ma ahayn waxaan rabay ama waxaan jeclaa ma ahayn waana arin aad u xun sida kale ay ku saameyn kartana waxa inuu waqti ka lumiso oo tusaale qofa waxa laga yaabaa inuu iska doorto engineering oo kale inuu doortaa laga yaabaa wuxuu shaqo ku lahayn hadhowdi markuu 1 sano dhigto ama 2 sano uu dhigto uu arko inuu waxaan wadi karin inuu ka boodo oo uu joojiyo oo uu hadana bilaabo mid kale halkaas 2 sano ayaa kaaga qasartay ama 1 sano ayaa kaaga qasartay dad badan oo sidaas sameeyay way jiraan marka career fiican dooro oo hadhowdi aadan ka shalayn doonin qaladka labaad ee ardayda sameeyaan ama dhalinyarada jaamacadaha dhigta ay sameeyaan waxa la yiraahdo waxa waa in 100% aad ka fashid jaamacadda ama college-kaaga 100% waxba kuma barayso marka hadii mentality-aadu uu ku jirto in 100% wax lagu bari doono wax walba aad rabtid jaamacadda aad ka helaysid hadaba go'aankaas waa go'aan qaldan wax walba kama helaysid jaamacadda 100% jaamacadda kuma barayso 25% kaliya ay jaamacadda ku baraysaa inta kale adaal raba inaad la imaadid marka hadii aad moodaysid in jaamacadda wax walba laga barto wax walba laga barto jaamacadda adu un baa wax isbaraysid kaliya waxa ka faa'iideysaa experience iyo shahaado fiican inaad heshid un baa jaamacadda ka faa'iideysaa wixii kale inaad adiga la imaadid ayaa lagaaga baahan yahay marka qaladkaas hadii aad ku jirtid waad is leedahay jaamacadda wax walba aad ka baranaysaa ma ahan sidaas jaamacadda 25% aad ka baranaysaa inta kale adaa lagaaga rabaa marka taasna ka digtoono qaladka kale dhalinyarada ay sameeyaan jaamacadaha ama ardayda jaamacadaha ay sameeyaan waxa weeye in jaamacadda kaliya aad isku halaysid shahaadadeeda dabcan shahaadada jaamacadda waa wax fiican oo waxa aad baranaysay waayaba oo waqti aad ku lumisay laakiin lama baahno inaad waqtigaaga oo dhan aad ku lumisid jaamacad kaliya waa inaad sameysatid skills ama xirfado inaad sameysatid waa xirfaduhu waa laba skills hard skills iyo soft skills muuqaal hore ayaa jiro aan ka sameeyay skillska iyo skillsasha baran kartid iyo xirfadaha muhiimka ah sanadkan lagaaga baahan yahay noqdaan nooc walba muuqaal hore ayaa jilkan saaran soo daawo muuqaalkaas si aad u fahamtid skills waxa aan kala jeedo laakiin waxa muhiim ah in skills aad yeelatid oo aad isku haleynin jaamacadda oo kaliya qodobkaas aad ayuu muhiim u yahay dhalinyarada badankooda waxa laga yaabaa in jaamacadda kaliya ay isku haleeyaan oo shahaadada jaamacadda isdhahan shaqo ayaa ku helaysa shahaadada jaamacadda way ku boost gareynaysaa laakiin waxa muhiim ah waxay tahay inaad xirfad yeelatid oo ku shaqaysan kartid qaladka saddexaad ee ardayda ay sameeyaan waxa weeye waxa ay baranayaan aysan ku dadaalin ama hard work inaysan sameeyaan markii aad wax sameynayso waxa la yiri 100% samee wax walba aad sameynaysid hatta wax baranaysid 100% wax baro yani waxbarashada ka meelkeen lama rabo in intaad wax barashaan waxbaan baranay aad dhahdid hadhowdina aad seegsag noqotid jaamacadii aadan si fiican wax u baranin hadhowdi mataqaana ay imtixaanadii aad ku dhacdid waa dhibaato aad weyn marka in qofka uu dadaalo markii waxbarasho ku jirtid aad waxbarashada ka meelkeentid oo aad dadaashid oo aad heerkii la rabay aad gaartid ayaa loo baahan yahay lama rabo inaad magac bas waxbaan ka baranay aad dhahdid hadhowdina ay kugu dhacdo shalayto oo aad ka shalaysid sababtoo ah waxba maadan soo baran marka aad wax baranaysid dadaal 100% dadaal gali waxbarashada ha noqoto skills ha noqoto jaamacad wax walba aad baranaysid si fiican ugu dadaal oo ha noqonin qof seegsaga dhalinyaro badan ayaa jirto oo jaamacadaha markay dhigtaan ama ay bilaabaan aanan dadaalin oo hadhowdi imtixaanadii ku soo dhaco oo ku soo laabato imtixaanka duu kugu soo laabtana inaad sameeysid waaya mar kale waqti ayaa ka galay qarash ayaana ka galay qofka markuu wax baranay inuu 100% wax barta ayaa loo baahan yahay lama rabo in seegsaga aad noqotid oo kaliya magac bas wax ka baratay lama rabo marka qalad aad u weyn waay dhalinyarada ay ku dhex jirto badankooda qaladka shanaad ee ardayda sameeyaan jaamacadaha waxa waaye in aad maskaxdaada mashquulisid oo hal mar aad dhahdid waxa isla baranayaa waxyaabo aad u badan ama overloading aad ku sameeysid maskaxdaada looma baahna sidaas hal mar hadii aad wax baranaysid baro hal wax oo kaliya hal wax focus ka saar tusaale hadii hal maada aad baranaysid oo hal maada oo skills ama dhahno hadii aad baranaysid halkaas maada kaliya xoog saar laakiin hadii aad dhahdid saddex maado saddex xirfad oo kala duwan ayaa hal mar baranaya sida 90% ee ardayda sameeyaan
hal mar ayaa laga yaabaa inuu halkii maalin ama laba class uu xaadiro ama uu dhahoba 3 skills ayaan baranaya waqtigaaga oo dhan aad wada cariirisid waqtigaaga dhanba aad ku bixisid aad micnaha aad jaamgaraysid looma baahna waxaas hal maado kaliya focus ka saar halkaas wax kaliya ah baro haddii taas ay ku socon weydo iska bedel tu kala samee one at a time ma fahantay marka sidaas samee mar walba ha sameyn inaad 3 maado ama 3 skills ama inaad 3 class hal mar waqtigaaga oo dhan aad wada cuntid oo hal mar aad wada qasaaris looma baahna sababtoo ah maskaxdaada waxaas oo dhan ma wada qaadayso marka overloading ma fiicno in aad iska ilaaliso ayaa loo baahan yahay marka haddii wax baranaysid hal mar hal wax focus ka saar halkaas wax baro halkaas xifrad meel ka keen haddii kuu shaqooyin iska bedel mid kala bara hadana laakiin ha isku dayin inaad mar walba aad isla baratid waxyaabo aad u badan oo kala duwan dadka badan waxa ku dhaco inay hal mar isla bilaabaan waxyaalo badan hadhoodina mid walba sababtoo ah dadaalka uu qaybsanaysaa dadaalka maadada 100% focus ma siin kartid tan 100% focus ma siin kartid hadhoodi mid walba half ayay noqonaysaa marka tan xifradda aad aqoonta u leedahay midan waa 50-50 ama 25% waa tan kale 25% marka sidaas ay kaaga go'aysaa laakiin haddii hal maada kaliya ah xooga saartid halkaas mid ayaad meel ka keeni kartaa khaladkaas anigaba waan sameeyay kula hadlaayo markii aan dhiganayay jaamacadda waana khalad runtii ma fiicno marka gadaal ayaa ka garowsanaysaa wax walbana markii aad dhex gashid ayaad ogaanaysaa experience ayaad yeelanaysaa khaladkaagana waa inaad mar walba aad cashir ka baratid khaladka inuu iska dhaco asaga tagto looma baahno khalad walba kugu dhaco cashir ka baro experience-ga la sheegaya waxaa waaye khaladkaaga oo aad wax ka baratid marka khaladka ardayda ay sameeyaan 5 xabo ayaan kusoo koobaya walow ay jiraan kuwa kale haddii aad ogtahay qaar kale oo kamid ah khaladadka ay sameeyaan commentiga nagula wadaag bini aadan ayaa leeyahay oo khalad waa la wada sameeyaa balse mar walba isku day inaad ka fiirsatid wax walba aad sameynaysid haddii kugu dhacdo khalad aad sameysid waa inaad cashir ka barataa muuqaalkaas ayaan ku koobaya haddii halkan soo gaarto waa ku mahadsan tahay channelka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saaro gambalelkana furo si muuqaalada halkan aan soo dhigay ay kuu soo gaaraan muuqaalka like saar si badan u gaaro intaan ku kulmayno muuqaalka waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadiin